degmooyinka Buurtile iyo Harfa ka kalsan mudug iyo Nugaal ayaa lagu soo dhaweeyay dad Soomaali laga soo raafay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool dadkaas oo tiradooda kor u dhaaftay 800 oo qoys oo iskugu jira caruur iyo haween iyo ganacsato ayaa laga soo tarxiilay magaalada Laascaanood iyagoo maalmihii ugu dambeeyay halkaasi ka sameynayay ganacsato qaarkood ayaa warbaahinta la hadlay oo u sheegay in caruurtoodii iyo hantidoodii la dhacay salaameyna muuse bixi weyn waxayna ugu soo sameeyeen caruurteen iyo aabaheen oo 9 jir ah aniga dacsu wadanin qabo wadanin ba gaar naga soo saar aruurta soo kaxisana markale wax baa idin sheegay muddo bal idin soo qabnaa soo baxo xafiiska imaadana waan keenay muddada soo waxayna dhay wax dib uma noqonaysan aruurna ma soo kaxisanaysaan alaabtii ma soo qaadanaysan orda gaariyaashan qor aruurtana ku soo tagnay aabeena ku soo tagnay handadayni hore waan ku soo tag kobol aan ba ku socona dabsaar la'aan ba ku socona wax adduunyada ku dhicin ba wiligiis naga soo riday ilaahay baa ugu maxdinay ilaahay baa amarkaas noo qoray kale dib waanahay dibkaasna ilaahay baa noo qadaray dacas la'aan baa kobol la'aan aruurteena naascaanada وصلتنا إنه واحد جونا قال كايو ومد الصومالية ده واحد بمجود لانك شن أرود على لبا بوتصدق واقصتك ننك لبا وتحل مقصتك لبا وحلن ووطاي نبوا نومير عروتن كل الناس عرض بجون وانا نصود دي الدب ونقولنا راشم مساق ده إسلام ما أجرته إسلام ما يكون رقميان وركون إنه وحوي أجر بهن كواسان وذي كواساك إلهي بنكود داري tan isaaka afka halkan ba hadda buskut lagu sii magaalada Buurtile markaan soo gaaray ayaa wallahi buskutka ugu horeeyay hadda halkan lagu sii isaaqadoodii maanta 12 saasay ka dhigan baanaga caruurteeda haysana caruurteena laga soo kaxaystay oo nolugina caruurna kuma kaxaysanaysan socda ee xilxiray ee dhaxan baan seexanay ee moobilada wana laga qaatay oo caruurteeda aniga u ooyana laga soo kaxeeyay oo nolugu yiri orda caruurna ma haysanaysan orda bila caruure waana la soo baaciye caruurtiin wana laga haysta oo gurigayga alaabteeda waxayga wana laga haysta hooyooyinkayga way naga maqan yihiin oo moobilada iyadii waxayga oo dhan wana laga haysta gawaari wana lagu soo guray xalay hataa man casheen oo saaka ma quraacan sidii wan ilaa aad ku joogno anagu maamul ahaan degmada Buurtile maamulkeeda waxaan aad iyo aad u soo dhaweynay oo tan iyo galabta iyo amniga iyo booliska aanu ka hortagnay hawd kaga sii hortagnay caawa ee maxkamadii dadkaas oo saaka waxa weeye laga soo barakiciyay Somaliland maadaama waxa weeye dad masaakiin ay ahaayeen oo waxa weeye wadankooda ka xamaan jira dad Soomaaliyeed ay ahaayeen shacabka Soomaaliyeedna ay san inahay in la siyaasadeeyo dadkaas oo hawd badan maanta soo jira iyo dhibaato badan iyo rafaad badan maamulka Buurtile isku duuban xogayaha iyo waxa weeye imaamada iyo dowladahan waxaanu kaga hortagnay meesha waxaanu karaanka iyaga waxa weeye kari karno sidii waxa weeye dadku waxa weeye waxaan gurmad fiican loo soo gaaro islaam oo walaalahoodii ay haleen baa haddeer meesha ugu imaanay haddeerna waxa naga hor yimid oo soo dhaweeyay dadka haddeer socdo oo raashin iyo u keenay degmada hogayaha degmada Harfa iyo gudoomiyaha maxkamadda iyo odayaal badan oo degmada Harfa ka socdo waa mahadsan yihiin maamulka Somaliland waxaan u dirayaa war Soomaalinimada hadda diidan islaamnimada hadiidinina islaam baa isku nahay dadkan dad islaam weey ilaahayna wuxuu subhanahu wa ta'ala وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أنا مركز عاون كم حسبني من أمرك إلهي يا أمرك دولة بوتلان مدحوينها هديتاي وزير هديتاي هير قبل هديتاي هير دقم هديتاي إتاسنا صوص علي إياه واجبك إلهي نفرستاي هير دقم هديتاي إتاسنا صوص علي إياه واجبك إلهي نفرس سبحانه وتعالى ساعد هذا وسدود همينما waxaanu joognaa degmada Harfo waxaanu rabnaa inaanu wareejino dadkii walaalaha ahaa oo ka yimid Laascaanood oo laga soo saaray oo 14 gaari saaran haddana anaga maamulka degmada Harfo anaga aanu soo wareejinay oo Buurtile oo hadii la ku roon yahay lagu soo dhaweeyay ka soo wareejinay xilligaana aan wadno haddana waxaan rabnaa inaan isaga wareejino maamulka gobolka Mudug oo hogaaminayo maayarku iyo isimada iyo suldaankii guud ee beesha Raxan Weyn iyo maamulka kale iyo saraakiisha kale inaan ku wareejino waxay yimaadeen dalkoodii iyo dadkoodii oo yimaadeen dhulkoodii aan laga xigin bay yimaadeen
waxaan rabnaa inaan dejinno soo dhaweyno sharafno martisooro amnigooda sugno haddii ilaahay idmo idinkuna waxaan rajaynaynaa sidaas oo kale kuna safar dheer ayay soo galeen insha Allah sidoo uu sheegay weeyaan oo dhulkoodii ay hooyo ay imaadeen dadkaas waana la dejin doonaa qofkii raba inuu dego Puntland waa lagu soo dhaweynayaa waa la siinayaa meeshuu rabo inuu ka dego wixii loo qaban karo waa loo qabanayaa Cabdullaahi Cabdirashiid Xasan Home Cable TV Garowe maxaa ku dhibay isticmaal Samtel si aad u heshid internet xad lahayn macmiil ku shubo internet ama ku hadal si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleystay helaya abaalmarino ay ka mid yihiin guri dhul geel ari dahab iyo hadiyado kale oo qaaliya haddaba kaga shubo ii dahab xidig hal eber hal 4 gees